السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وكنال كينا تيوري الصومالي أتكبرتين تيوريga إن شاء الله تعالى. أن كشرحي دون هدو إلهي يدمو وانا عشر كينا سديدات كي إنو قدن بوحوها عشر كي تضوات مثل إكزام مثل امتحان كي تضوات حاسكو دي دونا إنا نشرحو كي سديدات هدو إلهي يدمو سيدا عدد سؤالها خفار هركنينكا وان قد بنا waxaan bilaabaynaa su-aasheena inoogu horeysa afartanka su-aalood qaybta afartanka hadduu ilaahay idmo. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 bromfietser, 2 vrachtwagen, 3 voetganger. B. 1 vrachtwagen, 2 bromfietser, 3 voetganger. C. 1 voetganger, 2 bromfietser, 3 vrachtwagen. su-aasha noogu horeyso su-aalaha afartanka loo yaqaano verkeers regels and verkeers inzichten insha allah waxaa la yiri what is here the juiste volgorde van voor laten gaan, yani halkan sida ugu saxan lasugu xigo oo loo kala hormari doono waa sidee mise loo kala leeyahay. waxaan leenahay hadduu ilaahay idmo wadadan waa wadadii loo sinaa oo loo yaqaanay gelijkwaardig kruispunt ama isgooska sinaanta oo aan lahayn wax qanuun ah wax xeer ah insha allah tacaala. hadduusan wax xeer lahayn waxay ka dhigan tahay marka ciddii midig ka imaada in la siiyo mudnaanta, laakiin haddeertaan wax midig ka imaanayo ma jiro. mootada loo yaqaano waa bromfitska waxay ka imaanaysaa dhankan gaariga weyna dhankan, yacni isku wada ayay saaran yihiin way iska soo horjeedaan. hadday marka iska soo horjeedaan gaadiidku ama wadada ha ahaato tii sinaanta ahayd ama ha ahaato tii xeerarka yaalay, marka hadday iska soo horjeedaan ciddii tooska aadaysa ayaa lahaan doonta, ama ciddii goolada ama jiirada ama leexadka u dhow ayaa lahaan doonta. sidan u naqaano nidaam ahaan kort bocht, gaariga weynna wuxuu leeyahay lang bocht. hadday bedelka uu ku jiro gaariga weyn ay ahaan lahayd mootada, gaariga weyn ayaa kala ahaan lahaa. macnaheedu maaha mootada way ka yar tahay waan siinana maaha, marka xeer ayaa kala haayo. maadaama mootada ay leexadka ay u dhowdahay, ugu horeyn waxaa ka leh qofka socdo oo loo yaqaano voetganger, socotada loo yaqaano. voetgangerka marka sababtoo ah isku wada ayay wada saaran yihiin dhammaan, yacni laamiga ma saaran dabcan meesha lagu socdo ayuu ku socdaa, laakiin asiga tooska ayuu doonayaa mootada leexanaysan dhabarka ayay kasoo aragtay, gaariga weyn wejiga ayuu ka arkayaa darum ayagana leexanayo. hadday toos ahaan lahayd ayaga unbaa lahaan lahaa, laakiin haddeertaan waxa ugu horeeyo qofka soconayo oo voetgangerka ah ayaana ugu horeeyo, kadibna waa bromfitska, kadibna waa frakt autoga, waa mootada yar gaariga weyn oo ah haddeertaan waxaan leenahay insha allah sayda oo ah voetgangerka, bromfitska iyo frakt autoga. U rijdt hier 40 kilometer per uur. Mag dat? halkana waxaa leeyahay su-aasha xigta u ride 40 kilometer per uur, yacni orodkaada mise xawaarahaada waa 40 kilometer saacadii. maqdad wadadan mala ogol yahay, yacni meeshan waxaad ku wadaa 40 saacadii mala ogol yahay. maq miya? waxaan leenahay maya, maxaa yeelay cajalkan wuxuu leeyahay wadada waa baraf, waa wada aad ku silabaxa karto ama wada aad ku sabiixi karto ama ku taariixi karto ama siibashaba haddaan ereyga loo dhigo Soomaali lagu siiban karo
يعني hadduu gaarigan orodkiisa badan yahay oo fariin qabto gaariga hore kama istaagayo wuu jitamaya macnaha wuu siibanaya labada dhinacna waxaa ka taagan laba qof oo soconaya oo haddana aad u moodo inay wax isku turtuurayaan barafkii marka waa halis waxaa leeyahay meeshan 40 kilomitir inaan ku wada maahan inaan taxadiro adiga 25 30 meelahaas qiyaastii inaan ku wadna ayaa wanaagsan si haddii dadkan u soo galaan wadada aad fariin aad u qaban kartaad ee ku suurta gasho marka waxaan leenahay waanee insha Allah. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. Fietser 2 brommobiel 3 auto. B. 1 auto 2 fietser 3 brommobiel. C. 1 fietser 2 auto 3 brommobiel. su-aasha xigta waa su-aal iidan ah sida loo kala leeyahay oo marka la taagan yahay isgooska sinaanta oo loo yaqaano gelijkwaardig kruispunt waxaan leenahay sawirkadan eegno sida ugu saxan la isugu xigo loo kala hormarayo waa sidee waxa haddana aragnaa isgooska aanan lahayn boor ama haytand ama calaamado oo cidig ka timaada dhanka midig unbaa leh gaariga cadka ah wuxuu ka imaaday dhanka bidix waa inuu siiyaa qolada ooga imaaday dhanka midig oo ah baabuurka loo yaqaano waa bromobile iyo fitsaha marka maadaama baabuurka loo yaqaano waa bromobilka iyo fitsaha mise baaskiilkaba ay hal dhinac wada joogaan waxaan u fiirinaynaa marka yaa tooska raba hal wadana ay saaran yihiin hadeertan waxaa tooska raba baaskiilka ayaa inoogu horeeyo waxaana laabanaya gaariga loo yaqaano waa bromobilka ayaa ku xigo 2 3na waa gaariga cad insha Allah taala waxaan leenahay a fitser baaskiilku waa bromobil gaariga 45 ku wado orodkiisa kadibna awtaha gaariga caadiga ah waa a Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 vrachtauto 2 fietser 3 auto. B. 1 vrachtauto 2 auto 3 fietser. C. 1 fietser 2 auto 3 vrachtauto. su-aasha xigta waa wili waxaan ku jirnaa su-aalihii ahaa sidee loo kala leeyahay oo aan haddana joogno isgoos loo siman yahay insha Allah oo gelijkwaardig kruispunt ah waxaa la yiri sida loo kala leeyahay meeshan mise halkan waa sidee gaariga oo yar oo kharayska ah mise greyga ah iyo baaskiilka waxay ka imaadeen wada bidix ama bidixdaba ama linkska gaariga weyn oo loo yaqaano fracht auto wuxuu ka imaaday dhanka midig ayuu ka jiraa baaskiilka iyo gaariga yaraba waxa inoogu horeeya gaariga weyn ayaa lambar 1 ah lambar 2 waxaad dhihi lahayd ama dadka qaar is dhihi lahaayeen gaariga kharayska ayaa leh mise gaariga greyga kadibna baaskiilka laakiin sidaa ma ahan baaskiilka ayaa hadda iska leh maxaa yeelay gaariga cadka ama greyga iyo baaskiilku waxay wada saaran yihiin hal wado yacni ma ahan in ay maxaa ku dhaay sheegay hadduu gaariga kharayska ay dhanka midig ka imaan lahaa baaskiilka waa laga lahaan lahaa sida gaariga weyn oo kale laakiin hadeertaan isku wada ayay saaran yihiin haddii marka isku wada aad saaran tihiin ama ha ka soo horjeedo qofka ama sinaada isgarab taagnaada dhibaato ma lahan marka qofkii toosan ayaa lahaan doono baaskiilka ayaa tooska ah asiga ayaa inoo leh hadeertaan kadibna waa gaariga loo yaqaano waa greyga insha Allah waxaan leenahay marka hadduu ilaahay idmo waxaan leenahay fracht auto gaariga weyn fitser baaskiilka auto gaariga yar waana aada Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 auto 2 vrachtauto 3 motorfiets. B. 1 auto
en motorfiets. 2 vrachtauto. C. 1 vrachtauto, 2 auto en motorfiets. waa su'aal la mid ah su'aalahan soo dhaafna hadirtaan. Waxaa iidana leedahay wili sida loo kala leeyahay ugu saxan loo kala hormari doono waa sidee. waa isgoos loo siman yahay wili aanan lahayn wax boor ah, wax haytaandi ah, wax calaamad ah, wax qaanuun ah aan lahayn. sida caadada ah cidi midig ka timaada ayaa ka leh cidi bidix ka timaada. gaariga weyn wuxuu ka imaaday dhanka bidix oo loo yaqaano front auto, wuxuuna ku khasban yahay gaariga kharayska mise gareyga ah iyo mootada weynba inuu siiyo. marka labadooda siday u kala qaadan lahayna eegena. gaariga waxa ugu horeeya oo gareyga ah ugu horeeyna baxayo, kadibna 2 wax weeyaan mootada, kadibna 3 wax weeyaan gaariga weyn. marka waxaan leenahay waxaan leenahay auto gaariga yar oo gareyga ah, motorfiets mootada weyn, front auto gaariga weyn ku xigo, waana B hadduu ilaahay idmo. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietser, 2 motor, 3 auto. B. 1 fiets, 2 auto, 3 motor. C. 1 auto, 2 fiets, 3 motor. su-aasha xigta waxaa la yidhi waa mid la mid ah kuwaan soo dhaafnay. waxaa la yidhi sida loo kala leeyahay ugu saxan loo kala hormarayo waa sidee. waa isla mid, waa isgoos loo siman yahay ama loo yaqaano Nederland ahaan gelijkwaardig kruispunt. isgoos loo wada siman yahay oo ay tahay cidii midig ka timaado inay leedahay oona laga leeyahay dadkii bidix ka yimaada. hadeertaan baaskiilka ayaa waxa uu ka imaanayaa dhanka midig oona oga imaanayaa gaariga cad. gaariga cad wuxuu ku khasban yahay inuu baaskiilka siiyo uu ka sugo. mid la mid ah gaariga cadna wuxuu ka leeyahay oo uga imaaday dhanka midig mootada oo loo yaqaano waa motorka. mootada dhanka midig waxa uga imaanaya gaariga cad, waxayna ku khasban tahay inay ka sugto inay siido gaariga cad. marka ugu horeyn waa baaskiilka, 2 gaariga cad, 3 waa mootada insha Allah. waxaan leenahay fits baaskiilka, auto gaariga, motor mootada, waana bayda. U wilt linksaf. Moet u de fietser voor laten gaan? waxaa la yidhi waad laaban rabtaa adoo gaariga wata, dhanka bidixadna u laaban rabtaa. yacni baaskiilkan ama baaskiilahan tooska rabo ayaa wadadiisa gali doontaa. adiga yaa siga yaa leh. mut uu miyaa ku khasban tahay adigu fitser baaskiilaha foola taqaan inaad hormarido? waa haa. adiga laabanayo asiga toosuu rabaa, waana iska hor imaanaysaan. yacni wada kaleeto bidix kaagama imaanin, markaas waad ka leedahay haddii aad laabanayso. laakiin hadeertaan waa isku wada aad iska hor imaanaysaan oo asagana toos raba weeye. marka waxaan leenahay baaskiilka waan siinaynaa. U wilt rechtdoor. Moet u de auto voor laten gaan? waa haddana isgoos loo siman yahay ayaa taagannahay. hadda soo baranay. waxaa lagu yidhi gaariga gareygaa wadataa mise kharayska ah eelka saaran. waxaad doonaysaa la yidhi u wilt rechtdoor inaad toos u socto adiga. miyaad ku khasban tahay adiga tooska raba in gaariga guduudka ah oo kaaga imaaday dhanka bidix inaad siido? waa maya. isgoos loo siman yahay weeye aanan borar lahayn. boorkan hore ha eegin adiga. boorkan hore wuxuu ka hadlayaa inaad wadaday tahay wadda hal jiha ah, taa ma ahan aadna awood leedahay inaad gasho. marka gaariga kaaga imaaday dhanka bidix isgoos loo siman yahay waaye. adiga kuma hayso stopboard, kuma hayso hightown, marka waad ka leedahay. maadaamaad ka leedahay aadna toos doonayso hataa hadeerta laabo, laakiin bidixoo kaaga imaaday ma ku khasban tahay inaad hormarido? waxaa lagu leeyahay u wilt rechtdoor, ma ku toos saartaa inaad aado, ma ku khasban tahay adiga nay
sorry, moet u de auto voor laten gaan. Ja, adiga ma ku khasban tahay inaad gaarigan hormarido? Waa maya. Waad ka leedahay sidaad u horumarinay. Wat is uw toegestane maximumsnelheid hier? Su-aasha xigta waxaa la yiri what is uw toegestane maximum snelheid hier? Yacni orodka ugu badan oo lagu ogol yahay ugu badnaan mise xawaarahaba waa imisa wadadan. Boorkan waxaan soo baran inuu yahay waxa loo yaqaano auto snelweg highwayga mise khadka xawaaraha sare lagu wado mise wadada xawaaraha sare lagu wado mise khad sariic loo yaqaan. Sida caadada ah sanadan ku jirno iyo waqtigan taaganahay boorkan waxaa lagu ogol yahay inaad 130 aad garaacdo, laakiin cajaladan maadaama ay xoogaha yara horeysay waxaan leenahay 120. su'aalaha waxay ka mid yihiin wax laga bedelay. Wat geeft dit bord aan? A. Adviessnelheid. B. Maximumsnelheid voor alle motorvoertuigen. C. Maximumsnelheid voor alleen vrachtwagens. Su-aasha xigta waxaa la yiri boorkan muxuu sheegayaa mise ku siinaya mise ku tilmaamaya? Boorka laga hadlaayo haddaa su'aalaha eegto waxaa laga hadlayaa xawaaro. Jawaabaha haddaad fiiriso xawaaro unbuu kuu sheegaya. Adviessnelheid xawaaraha oo talada, maximumsnelheid xawaaraha ugu badnaan. Okay, marka midda laga hadlaayo waa midka marka orodka khusaysa mise xawaaraha khusaysa oo haddatan 80ka. Marka 80ka waxay ku jirtaa kowaabin casaan ah mise guduud ah ereyga kale. Kowaabinta waxay ka hadlaysaa marka in uu yahay haddii casaan ku xindaawan tahay mise ku wareegsan tahay waxaa loo yaqaanaa inuu yahay maximumsnelheid xawaaraha ugu badnaan wadada lagu ogol yahay. Kii oo macnaha ahaa oo talada ma ahan. Waxaan leeyahay marka hadduu guduud ku xindaawan yahay waxa weeyaan maximumsnelheid xawaaraha ugu badnaan lagu ogol yahay for alle motorvoertuigen loona ogol yahay cid walba motor ku socota oo gaari motor wadata leh waana bayda. Wordt u hier gewaarschuwd voor een scherpe bocht? Su-aasha xigta waxaa la yiri wordt u hier gewaarschuwd meeshaan miya lagaga digayaa for een scherpe bocht, yacni goolad oo sharp ah mise af leh oo mataqaanaa oo zaa'id u leexanayso ama jiiro aad u leexanayso ya miya lagaga digayaa? Waa maya. boorkan waa boorarka loo yaqaano waa digniinta loo yaqaano, laakiin wuxuu kaaga digayaa inaad gali rabto wadad tariin oo haddana leh wadad dhowr tariin mari kara oo leh tweespåren of mir leh ayuu nooga digaya kan. Marka waxaan leenahay waxaadna weydiisay ma ahan oo ney hier meeshaan lagagama digaayo boqti oo leexanayso aad u xun. De touringcar wil van de halte wegrijden. Moet u de touringcar voor laten gaan? Su-aasha xigta waxaa la leeyahay the touringcar waxaa loo yaqaanaa baskan oo safarayda ah ama dalxiisaha ah ayaa loo yaqaanaa. basaska caadiga oo kaleenta ma aha, laakiin waa isku xeer un bay yihiin inta badan. Marka the touringcar baska dalxiisaha aado wil van de halte wegrijden wuxuu doonayaa inuu haltaha ama meesha baska istaaga uu ka dhaqaajiyo. Mut uu adiga gaariga wata gareyga mise qarayska eelka saaran ma ku qasban tahay adiga baska ka dhaqaajinaya haltaha inaad siido? Wuu ka leeyahay waxaa lagu guda jiraa magaalada gudaheeda. haddii lagu jiro magaalada gudaheeda loo yaqaano waa binnenbebouwtekom waa inaa baska hadduu ka dhaqaajinayo haltaha inaad siido weeyaan. waana ya. U wilt hier alsnog van rijstrook veranderen. Mag dat? Su-aasha xigta waxaa la yiri u wilt hier waxaad doonaysaa adiga gaariga eelka wata alsnog ina wili van rijstrook veranderen ina leenka gaariga ku waday aad bedelato kan kalaad aado.
marka waxaa la yidhi ma la ogol yahay marka makhdad waa maya lama ogolo meel aad ka bedelato ma taagnid xaqiijinta isku xirneed weeye haddana hadduu ilaahay idmo meesha ugu dambeysay oo isgooskii ahayd ay imaaday marka waxaan leenahay raistroka ma bedelan karta ayuu leeyahay raistron waxaa loo dhahaa leenka halka leen oo gaari lagu wado yacni leenkan waa mid lagu wado gaari leenka kala saaran tahay waa mid gaari lagu wado isna laakiin meesha ugu dambeyda imaaday waxaadna doonaysaa inaad leenkan kala gasho oo aad laabato kale ma la ogol yahay marka waa nay Bij uitwijken komt u de rechterwielen in de zachte berm. Wat moet u doen? A. Gas loslaten. B. Remmen. C. Sturen. su-aasha xigta waxaa la yidhi by outwiken adigoo ka weecanayo ka durqaayo gaariga kaa hor imaanayo ayaad ka sikanaysay ya marka komt uu the rector willen lagu hada qaybta midig ku yaala ayaa waxay aad la kortay cooska jilcan berm waa cooskii zaktana waa jilcan yahay sooma yacni cooska jilcan ayaa lagu haday aad la imaaday ama waadba kortayba marka waad mutuduun maxaa samaynaysaa macnaha haddaa gaari wadayda oo aad naweecanaysay oo cooskaad macnaa imaaday cooska maadaamuu jilcan yahay waa sibaxasho ama waa taraarax cooska marka maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa saadan usii taraarixin ama usii siibaninba khaaska sii deyne gaas ama khaas loos laatan macnaha sheelarihii mise khaaskii ayaad dayne yani orodkii macnaa u istaagay haddaad samaydo remen oo aad fadhinka qabato siibaxshadaada ama sabiibaxaada wuu sii kordhayaa wuu zaydaya haddaad sturen dhahdo adaad steriga wareejido isku daydo inaad ka wareegto meesha cooska ah way kugu adkaane marka waxaa wanaagsan inaad marka xawaarahaada yaraado oo gaaska sii dayso aad ka si tartiib aad uga soo baxdo cooska jilcan insha allah waxaan leenahay marka khaas loslaten Wie moet hier uitwijken in de berm? A. Alleen de vrachtauto. B. Alleen de auto. C. Allebei. su-aasha xigta waxaa la yidhi we moet hier outwiken in the berm yay ku khasban tahay halkani in uu u sikado mise u weecdo dhanka cooska xiga halkan gaariga weyn iyo gaariga yar adiga wadata ayaa laga hadlayaa yacni gaariga weyn iyo adiga meeshan idima deeqdo saad ka aragtabo labada gaari way isku dhow yihiin inaad isku racdaan laga yaabo ama aad isjiirtaan oo kale marka yaa ku qasban in halkan oo u sikado ama oo u weecdo dhanka cooska xiga gaariga yaro tore waxa uu leeyahay in yaroo mataqaana faase gaariga weynna waa maya midda kale gaariga weyn wuu culus yahay wuuna weyn yahay haddana weecashadiisa waxaa macquul ah in uu ka dhaco waddada meesha waa meel waddo taagaya xoogaha marka qofka weecanayo waa adiga gaariga yar oo elka wata ayaa qasab ay ku tahay inuu weecdo alleen the auto waana bayda keliya gaariga oo inuu sikado ka sikado dhanka midig ooga sikado ayuu ku khasban yahay gaariga weyn yacni gaariga yar ayaa sikanaya U ziet dit bord langs de kant van de weg. Waar rijdt u? A. Op een autoweg. B. Op een autosnelweg. su-aasha xigta waxaa la leeyahay u ziet dit bord langs de kant van de weg yacni boorkan ayaad ku aragtay dhinaca waddada ayaad ku aragtay waar right u halkay ku wadaa gaariga waar right u adiga halkay gaari ku wadaa waxaan hore usoo sheegay boorkan loo yaqaano hectometer board mise hectometer pal loo yaqaan wuxuu ku yaalaa waddada highwayga waddooyinka siyeetanka amase boqolka abo marka waxaan leenahay haddii marka meesha a ay ku qoran tahay
A20 A2 A9 waxaasoo dhanba oo haddana a ay tahay haddana kalarkana guduud yahay waxaa ku wadaa waxa loo yaqaano autosnelweg highwayga autosnelweg ama highwayga kan kale autoweg weeyaan maahan highwayga ayaad ku socotaa ayaan leenahay waana B. Waar mag u 120 km per uur rijden? A. Alleen autosnelweg. B. Alleen autoweg. C. Allebei. Su-aasha xigta waxaa la yidhi iyadana waar mag uu halkee adiga lagu ogol yahay 120 km per uur rijden yacni 120 saacaddii inaad ku wado halkee lagu ogol yahay waxaa lagu ogol yahay alleen autosnelweg highwayga keliya ayaa la ogol yahay inaad ku wado 120 iyo wixii ka badan 130 insha Allah waxaan leenahay marka a waa keliya highwayga. Wat beïnvloedt het rijgedrag? A. Alle medicijnen. B. Bepaalde medicijnen en drugs. waxaa la yidhi su-aasha xigta what beïnvloed maxaa saameyn ku leh het rijgedrag dhaqanka gaari wadida dabciga gaari wadida maxaa ku leh saameyn mise qaabkaad gaariga u wadayso maxaa saameyn kara mise kaa saameeya oo yani caqabad ku keeni kara waxaan leenahay B waa bepaalde medicijnen daawooyinka qaar oo aanan gaari ka wadi karin ayaa jiro iyo waa drugs iyo daroogooyinka hadduu qofka daroogo idil isticmaalo gaari wadidiisa ama dabciga gaari wadidiisa way saameynsan tahay qofka maankiisa maskaxdiisa ma joogto wax badan baa ka khaldami kara iyo daawooyinka qaar daawooyinka dhan ma ahan laakiin daawooyinka qaar kaliya macnaha waa bepaalde qaar weeyaan medicijnenna waa daawooyinka waa naqaanaa erey kaleeto lagu yirahdaa jiro daawooyin oona ah geneesmiddelen oo hore aan usoo sheegay waxaan leenahay marka B. Het zicht is 40 meter. U rijdt met uw mistachterlicht aan. Mag dat? su-aashan waxay ka mid tahay su-aal oo casharo hore aan kusoo baranay waxaa la yidhi marka het zicht aragtidaada adiga is 40 meter yacni intaad wax ka arki karto waa adiga meel ku jirta 40 mitir wey u ride met u mister achterlicht waxaadna daaratay nalkaada ceryaamada dambe maqdad ma la ogol yahay su-aasha jawaabteeda waa yaa hore waxaan usoo baranay goormee la ogol yahay inaad daarato nalka loo yaqaano mister achterlichtiga waxaa la ogol yahay haddii aragtidaada ka yaraato 50 mitir ka yar marka hadda 40 mitir waa aragtidaada waxaa si loojigayna u fikirta la rabaa inay 50 ka yar tahay nalkaada daaratay ceryaamada dambo ayaa daaratay ma la ogol yahay waa haa marka. Rijdt u hier een erf op? su-aasha xigta waxaa la yidhi rijdt u hier een erf op meeshaan ma erf baa ku wadaa erfna waxaa loo yaqaanaa boorkii bilowga ahaa mise buluuga ahaa oo guriga ku sawirnaa iyo gaariga iyo caruur kubadda ciyaaraysa ay ku sawirnaayeen buluuga ahaa ayaa loo yaqaanaa erfka su-aasha lagu weydiyo xitaa markaad dataan waxaa ku wadaa aagga 30 lagu wado laakiin su-aasha lagu weydiyo waxay tahay erfkii oo lagu wadi jiray 15 kilomitir ma ku wadaa waa maya ee waxaan ku wadnaa aagga 30 su-aasheena marka waxaan leenahay nay. U wilt hier stapvoets rijden. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la yidhi aagga 30 loogu talagalay ugu badnaan ayaa waxaad doonaysaa tallaabo oo kale inaad u wado gaariga maqdad ma la ogol yahay waxaa iyadana yacni tallaabo oo kale inaad gaariga u wado waxaa la ogol yahay erfka ayaa la ogol yahay hadda laakiin waxaan leenahay aagga 30 loo talagalay ugu badnaan ma ku wadi kartaa sida erfka oo kaleeto oo ah stapfoots waana 15 kilomitir saacaddii yacni stapfoots waa tallaabada aadamaha uu qaado
waxayna ay u qalantaa 15 kilomitir saacadiina ku socoto adoo gaari wado marka stop foods ma ku wadi kartaa waa maya waa yaa sorry aaga soddonka 15 ma ku wadi kartaa mise talaabo kaleete ma u socon kartaa waa haa Hoe handel je in deze situatie? A. Ik hou mij in en laat de invoegende voorgaan. B. Ik rem krachtig en maak ruimte voor de invoeger. C. Ik geef een geluidssignaal en maak bewust geen ruimte. su-aasha xigta waxaa la yiri hoe handle je in deze situatie su-aashan waxaa la yiri hoe handle je in deze situatie يعني xaaladan oo kale haday ku soo marto situasiga waa xaaladii ama situation handle waxa weeyaan sideed ola macaamili kartaa sideed ola dhaqmaya xaaladan dad aragto yani gaarigan madowga wuxuu soo galayaa wadadan adigana bilmithalan wadadan ayaa ku wadaa waad ka dambaysaa hadda laguma tusin sawirka laakiin waad ka dambaysaa marka sideed ola dhaqmaysaa hadduu qofka uu soo galayo maxaa sameynaya macnaha maadaama wadada uu soo galayo qofkaas waxaa sameynaysaa aad leedahay hadduu la haydmo ik hou mij in aniga isxakameynaya waan isqaboojinaya waan istartiibinaya aan laat de invoegende voorgaan waxaana horumarinayaa qofka soo galaya invoegende qofka soo galaya weye voorgaan waa gaariga madow doonaya inuu soo galo raistrogan oo haybiga soo galo يعني infuuqan waxa weeyaan haybiga ayuu soo galayaa ya maadaama uu soo karay uuna doonaya inuu galo waxaan sameynayaa haddaan ka dambeeya aniga oo wadadan aan ku suganahay waan isara qaboojinayaa gaaskan sii deynayo soo u helo chance kusoo galo haddaan sii wada gaariga dabadan uga dhacaya ama inuu uu naqdaa laga yaabaa oo macquul ay macnaha u noqon weyso marka waxaan leeyahay ik hou mij in aan laat de invoegende voorgaan xaalkan kala hadduu kusoo maro waxaad oola macaamilta mise oola dhaqmaysaa inaad adiga isqawoojiso aadna horumarido qofka soo gala insha allah tacaala waxaa leenahay ik hou mij in en laat de invoegende voorgaan Wat betekent een rode verlichte kruis boven een rijstrook? A. Vooraanduiding einde rijstrook. B. De rijstrook mag niet worden gebruikt. C. Einde door elektronische aangegeven verboden. su-aasha xigta waxaa la leeyahay what betekent maxay tahay macnaheeda in rode verlichte kruis يعني x oo nal oo iftiinayo ama nal ah ama iftiimayo oo guduud ah ya oona lagugu sameeyey boven in raistroga dushiisa saad ka aragtaba yani raistroga kor waxaad ka aragtaa korkiisa in mataqaana calaamad x mise xa ah oo guduudan inay ku aragto marka macnaheeda roadkaas calaamada x-ta ah ama xaada ah oo aad ku aragto raistroga korkiisa ama sarta hore maxay tahay macnaheeda waxaan leenahay the raistrook wadada gaariga lagu wado leenka gaariga lagu wado mag niet word gebruikt lama ogola in la isticmaalo mamnuuc weeyaan waa bayda the raistrook mag niet word gebruikt raistrogaasi lama isticmaali karo yani macnaheeda ma ahan hadda laga hadlaya adiga midaad saaran tahay waa mid ku khruun mise cagaar waad socon kartaa laakiin midda kugu xigta iyo midda kusii xigta labadaas lama isticmaali karo waaye labadaas leenba lama ogola in la isticmaalo waana bayda Mag u hier sneller dan stapvoets rijden? su-aal u qalada tan oo kale aad soo aragna dadtan waxaa marka lagu leeyahay mag uu hier ma lagu ogolyahay meeshan sneller in ka badan dan stapvoets talaabo in ka badan oo 15 kilomitir ah riding ma lagu ogolyahay waa maya boorka
aan u naqiinay mise xaafadan u naqiinay erafka waa boorkan waa boor canug kubad ku ciyaaraya gaari yar iyo guri ku yaala waxaa loo yaqaanaa eraf inaad ku socoto saacadii 15 kilomitir loo gol yahay haddii si kale loo dhigana waa stop foot waa talaabada bini'aadamka uu qaado ayaa ku soconaya marka in ka badan talaabada aadamaha ma ku socon kartaa mise 15 kilomitir ka badan ma ku socon kartaa waa maya U wilt linksaf. Verlaat u hier een erf? su-aasha xigta waxaa la yidhi adiga gaariga wata gareyga mise qarayska mise elka wata waxaad doonaysaa inaad u laabato dhanka bidix verlaat u miyaad ka baxaysaa adiga hier meeshani in erf meel erf miyaad ka baxaysaa waa maya meel erf kama baxaysid ay waxaa ka baxaysaa aagga soddonka iyo aagga stilstanka ama istaaga la ogolaa ayaad ka baxaysaa haddii aad erf ka bixi lahayd waxaad mataqaanaa ii sheegee aad geli lahayd meesha boorkii buluuga ahaa meesha carruurta ku ciyaaraysay ahayd oo istalaab ku saaran gaduud laakiin hadirtaan erf kama baxeen waxaan ka baxaynaa aagga soddonka ah waana ney su-aasheena ma erf baa ka baxaysaa waa maya erf kama baxeeno waxaan ka baxaynaa aagga soddonka ah Wanneer mag een douanepolitie u aanhouden? A. Altijd. B. Bij de grens. C. Buiten de grens. waxaa la yidhi su-aasha xigta wanneer goormee mag een douanepolitie booliiska loo yaqaano duwaanaha oo waa booliiska jooga xuduudaha sida airportka oo kale ama xuduudaha kale caadiga oo loogu talagalay in uu canshuuraha iyo wax waddanka soo galaayo uu mataqaanaa baaritaan ku sameeyo canshuuro keliya maahan laakiin waa in mataqaanaa waddanka soo galaayo wixii ka baxaya in la socdo marka goormee loo ogol yahay in booliiska canshuuraha qaado ama xuduudaha maareeya goormee loo ogol yahay inuu adiga aan hawlin oo ku qabto ama ku xiro ku istaajiyo kula hadlo wax ku weydiiyo kadibna haddii wax qalad kugu arko ku xiro waxaa la ogol yahay booliiskaasi altijd mar walbaba b waxay leedahay by the grens xuduudda c waxay leedahay by to the grens xuduudda ka banaan laakiin waa mar walbaba waa a U wilt rechtdoor. Moet u de militaire kolonne voor laten gaan? su-aasha xigta waxaa la yidhi u wilt rechtdoor adiga toos ayaad doonaysaa oo gaariga wata elka miya ku khasban tahay adiga miyaa ku khasban tahay hadii loo dhaho mut uudi wa adigi miyaa ku khasban tahay the military colonne baabuurta militariga foolaadqan inaad horumarido waa maya adiga waxaad leedahay wadda forangsweq ah oo mudnaanta mudan oo adiga leh mudnaanta ayagana waxaa loo yaqaanay ilkaha iyo xaaska mise haytandigo waad ka leedahay ma siinay marka waa maya mar la siiyo jirtaa lakaatan lama siiyo waxaa leenahay marka may Iemand heeft zijn been gebroken. Mag u de been recht leggen? su-aasha xigta waxaa la yidhi iemand qof heeft zijn been gebroken lugta ayaa ka jabtay cajarka ayaa ka jabay iemand waa qof heeft zijn been gebroken yani lugta ama cajarkiisa ayaa jabay mag u adiga ma lagu ogol yahay the been lugta mise cajarkii recht leggen inaad toosido yani lugaha hadda way ka qalocsan yihiin sooma inaad toosido ma lagu ogol yahay waa maya inaad ugu yeerto dadkii wax caawinayo ambulancetiyo kaleete inaad ugu yeerto unbaa lagaa rabaa inaad toosido aad kasii darto lama ogolo marka shilow gala qofkii lugtaa ka jabtay ma la ogol yahay marka inaad toosido waa ney Mag u hier zo blijven rijden? waxaa la yidhi mag u hier meeshan ama halkan zo blijven rijden yani ma lagu ogol yahay halkan inaad sidaa un iskaga sii wado oo dhanka bidix ma iska haysato waayo baabuurka laa midig kaaga imaanaya marka inaad sidaa iskaga sii socoto markaad dhaaftay baaskiilka ma lagu ogol yahay waa maya inaad seedka midig qaadata lagaa rabaa dhanka midig u weecato sababtoo markii Yurub dhexdeeda waxaa la ogol yahay inaad dhanka midig un qaadato waddada
oo dhanka midig mataqaanaa ay taagnaato marka laga reebo ingiriiska iyo wadamada ingiriiska oo gumaystay oo Afrika ah wadamadaas dhanka seedka bidix ayaa lagu wada gaariga laakiin Yurubtan kale waxaa lagu sida Belgium iyo France German iyo Holland ba waxaa lagu wada dhankaas iyo wixii la mid ah seedka midig ayaa gaariga lagu wadaa baskiil mooto gaari seedka midig inay mar walba ku wadaan ayaa la doonayaa marka adiga baskiilkana doonta inaad dhaafto marka sidaas ma ku sii socon kartaa waa maya U wilt rechtsaf. Moet u de fietser voor laten gaan? Su'aashaydan waxay leedahay gaariga gareyga wadataa elka saaran waxaad doontaa inaad dhanka midig u laabato miyaa ku khasban tahay baaskiilaha tooska doonaya inaad siido waha maxaa yeelay qofka laabanaya waa adiga baaskiilkana adigoo isku wada saaran oo kaleeta ay la mid tahay oo iska soo horjeedo adiga dhankan ayaa ka imaaday matalan waadna leexa rabtaa asna wadiis unbuu haysaa tooskiisuu rabaa ma siine waa haa marka boorkan wuxuu ka hadlayaa in adiga dadka midig kaaga imaaday aad ka leedahay haddii aad toos doonaysay ahayd U rijdt 60 kilometer per uur. Hoeveel seconden volgafstand moet u bewaren? A. 1 seconde. B. 2 seconden. C. 5 seconden. waxaa la yiri u ride 60 kilometer per uur waxaad ku wadaa orodkaada 60 kilometer saacadii hoeveel seconden volgafstand moet u bewaren meeqa second oo masaafo dabagalka ah ay tahay inaad haysato keedsato second haddii lagu dhaho oo inay tahay su'aasha waxa loo yaqaano volgafstand masaafo dabagalka lagu weydiiyo oo second lagu weydiiyo waa 2 secondo su'aalo horaan u soo marnay ayaa sidaas nagu soo sheegay marka wili waa isku midkii waxaan leenahay marka 2 secondo kaliya U wilt rechtdoor. Moet u tegemoetkomende personenauto's verwachten? su'aasha xigta waxaa lagu leeyahay haddana u wilt rechtdoor waxaad doontaa inaad toos u socoto moet u miyaa ku khasban tahay adiga tegemoetkomende personenauto's yacni wax ka hor imaanayo oo baabuuro oo ka hor imaanayo baawuraha caadiga oo mid adiga kula mid oo kaleete ka hor imaanaya miyaad ka filaysaa hortaada waha maxaa yeelay hadduu gaari weyn ka hor imaadaad aragto gaari yarna waad ka filinaysaa marka gaari weynaba ka hor imaadee gaari yarna xad uga fili weysay marka waxaan leenahay waya person auto ma ka filaysaa inay ka hor imaadaan waya U wilt rechtdoor. Moet u de voetganger voor laten gaan? waxaa la yiri waxaad doonaysaa adiga gaariga wata inaad toos u socoto ma ku qasban tahay qofka soconaya inaad siido waa maya qofka soconaya asaa meel qaldan taagan asaa waxaa meeshan u taagan yahay qaldanta inuu wadadan oo gaariga ku socdo waa qalad meesha adiga ka dambayso ayaa ugu taala wada kale uu mari karo hadda laakiin meesha uu taagan yahay ma siinaysaa waa maya footgangerka ama qofka soconaya ma siinaysaa maya kaama laha si theory ahaan waa nay U wilt inhalen. Mag dat? waxaa la yiri meeshan xaafadan u eg oo ana haytan ka hormaanayso waxaad doonaysaa marka inaad garab marto moodo baaskilada ma la ogol yahay waa maya meel la isku dhaafi kara maaha meeshan waxaan leenahay nay U wilt linksaf. Moet u de bromfietser voor laten gaan? waxaa la leeyahay halkan hadduu ilaahay idmo gaariyaa wadataa waxaad doonaysaa adiga links af inaad dhanka bidix u leexato moet u de bromfietser voor laten gaan qasab miya inaad mootada qofka wata inaad hormarido maya qasab maahan kaama lahan boorkan wuxuu sheegayaa cidi midig kaaga imaaday inaad ka leedahay cidi bidix
isla waa ka lahayd ciddii bidix kaaga imaado waa ka lahaan jirta hadduusan xaytanta ku haynin mise stopboard ku haynin marka midigtii ciddii kaaga imaado waad ka leedahay ciddii kaa hor imaado oo boorka hoose sheegaya ciddii kaa hor imaado ciddii midig kaaga imaado waad ka leedahay bidixna sidoo kaleeta si lamid ah marka qofka bidix kaaga imaaday adoo rabo inaad bidix u laabato mad siinaysaa waa maya adiga ayaa ka leh U wilt de doorgaande rijbaan oprijden met 40 km per uur. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la yidhi adoo gaadhiga el ka wato u wilt de doorgaande rijbaan waxaad doonaysaa ama rabtaabo adigoo saaran waddadii fluchtstroke ahayd ama highwayga laga karo hadduu leedahay ama gaariga ka halaabo inta taagneedoo kale waa farsamaysa gaarigii waxaad doonaysaa inaad highwayga korto yacni waddada tooska ah waa midda highwayga aad kori doonto waxaad rabtaa in waddada tooska ee aad ku wado rijbaanka wax lagu wada ay tahay aad ku wada rabtaa adigoo orodkaadu yahay 40 kilomitir saacadii ma la ogol yahay waa maya waa inaad horta hore waddada saaran tahay ku wadaa oo orodkaada ugu yaraan aad ka dhigtaa 60 kadib aad gashaa doorgaande rijbank waddada lagu wada baabuurta oo highwayga ah inaad tooska rabtana aad ku wado marka waxaan leenahay maya waayo waddada highwayga dad baad saaran kaa dambeeya oo orodkoodinu yahay 130 60 ka badan marka adiga 40 baad inaad ku gasho lama ogolo highwayga ciddaan orodkeeda ahayn ugu yaraan 60 ma kori karto waxaa leenahay marka waa ney 40 kuma kori karna doorgaande rijbanka Wat is uw toegestane maximumsnelheid hier? waxaa la yidhi marka what is uw toegestane maximum snelheid here yacni xawaaraha ugu badnaan lagu ogolyahay waddadani waa imisa ayaa lagu leeyahay sida caadada ee boorka ku qoran boqolka waa boor loo yaqaan maximum snelheid oona ku siinaya 100 waana boor laga sameeyey gadac laga sameeyey laakiin haddii aad indhaha furto boorka ku shaqeeya korontada loo yaqaano matrix boardkana waxaa lagugu qoray 70 waxay ka dhigan tahay markaa boorka gadaca ah oo aan isbedelin waxaa ka awood badan midka ku shaqeeya korontada marka adiga waad iska iloobe midka boqolka ah waxaa orodkaada uu noqonayaa midka 70ka ah markaad waxaan qoraynaa insha allah 70kii waa 70 ayaa la ogolyahay haddeertaan haddii laakiin uu kaa dhammaado oo lagaa tirtiro boqolkaadi ayaa kusoo noqon kartaa Wat is uw toegestane maximumsnelheid hier? A. 80 km per uur. B. 120 km per uur. C. 100 km per uur. su-aashan waxay leedahay orodka ugu badnaan la ogol yahay waddadan waa imisa waxaan ka arkaynaa boorka ku shaqeeya korontada loo yaqaano electronic signalering board erey kaletana ah matrix board waa 80 inta la ogol yahay ayaa kugu qoran waana ka marka imisa ayaa lagu ogol yahay waa 80 km per uur U wilt linksaf. Hoe moet u voorsorteren? A. Zoveel mogelijk naar rechts. B. Zoveel mogelijk naar links. C. Tegen de as van de weg. su-aasha xigta la leeyahay u wilt linksaf waxaad doonaysaa inaad u laabato dhanka bidix Hoe moet u voorsorteren sidee isku hagaysaa sidee ay tahay inaad isku toosido aad isku hagto waxaan leenahay marka hadduu ilaahay idmo tegen de as van de weg inaad stoepkan aad ugu dhawaato ayaa loo ogol yahay ay tahaybo marka inaad sidaas samayso weeyaan maahan zoveel mogelijk naar rechts maahan zoveel mogelijk naar links waxaan leenahay tegen de as van de weg waa saydu U wilt rechtsaf. Sorteert u zo goed voor?
su-aasha inoogu dambaysa waxaa la yidhi waxaad doonaysaa inaad u leexato dhanka midig soo tiirta uu soo khud fo sidaad isku toosiday mise isku hagtay ma si fiicanba maya waayo waxaad taagan tahay dhanka bidix ayaad u dhowdahay meeshii lagaa rabay inaad u dhawaato taykhda asfanabeeq oo aad u dhawaato qaybta midig aad u leexan doonto aad la rabo inaad u dhawaato marka waxaan leenahay nay waa mid khaldan waa 40kii su'aalood cajaladan waxaa laga yaabaa loo yaqaano bulletka dad badan inay isdhahaan waa cajalad aad iyo aad out u ah ama oo horay ah waa sax dabcan waa cajalad hore haddana su'aalaha laga bedelay waxaan isleeyahay hadday u bataan 10 su'aalood waayo oo khuseeya xawaaraha waana maxaan ku yidhahdaa ilaahay idmo intooda kale weli xarunta imtixaamaadka lagu gala CBR-ta way yaalaan waana su'aalo aad u adag oo aad u wanaagsan qaanuunka sidii ayuu u jiraa weli waxa laga bedelay highwayga xawaaraha oo 130 ah qofka wada aan hanqwaaqan 80 buu ahaa inta haddana waxaa laga dhigay 90 waxyaaba noocaas unbaa laga bedelay hadday u badato 5 waaye ama haddaan ka badiyana 10 iska leh ayaa laga inta kale waa su'aalo aad ku anfici kara marka waxaan leeyahay insha Allah tacaala 40 su'aalood waan dhameynaa alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan isku dayaynaa 2 cashir ayaa noo dhiman oo ah 9 iyo 10 inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku duubo ku boobsiiyo insha Allah hadduu ilaahay ii saamaxo waqtigana ii fududaado insha Allah waxaan leeyahay waadna ku mahadsantihiin ardayda mise walaalaha ku taxan ama ku xiranba cashiradan waxaan isleeyahay in wax ay ka faa'iideen aadana ugu mahadsantihiin insha Allah tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk